بدلكي سوماليلاند قيب لإيبيا مقشة سو معها سير على حبشة الإيبيا سو لما ورنين دولك سوماليلاند لما إيبين كرو مدحوين لما إيبين كرو لما إيبين كرو لما نواكر warkaasi waa ka cadowga malaha kuwa sidaanay haddii loo dhiibaya iibin lahaaba ilaa tahay awoodda marihi madaxweynuhu malaha ka soo socdaana malaha dastuurka Soomaaliland baa xaaraantinimeeyey dalka Soomaaliland in ciidan soo qaado hayeeyaa u dhintay waxaad leedahay baynu u marray waa la iibiyey ninkeedu waa xaaraan waa cadow Soomaaliland maray dhicina mayso حتى هشيس الجلال محوية هشيس ميال الجلال هشيس والله الجلال ومحوية هذا هشيس الجلال هو نظام مريض دستورك جمهورية الصوماليلاند وحيو بني دستورك يا مريا وحو دستورك فهمين ولا فهمين كلامك وقاضينا دستورك مريا هشيس صليك هشيس وكا دولة إثيوبيا iyo Soomaaliya waa shireen madaxdooda waxay isu sheegteen dawladda waliba ugu baahan yahay inuu dawlad wax kala qabto dawladana waxa la heshiiyey markii labada dalood ee labada dawlad mid waliba dantiisii uu ka dhaxarkay heshiiska inta hore u sheegay Ethiopia waxay diidaysaa labaatan kuleed sano dambeeyay inay ciidamadeeda badda meel ay dejiyaan Soomaaliland dowladda iyo soddon sano waxay u dagaallamaysaa u halgamaysay inay qarnimadeeda dowladda koowaad ee Soomaaliland ictiraafta ay raadiso Ethiopia maanta dhashay oo kamid ah iyo nin walba iyo dowladda Soomaaliland ay tiraahdo ictiraafkayga xaq baan u leeyahay garsiga sheegataa madaxweynaha kii ugu horreeyay ilaa maanta ka jooga nin walba waxa lagu yiraahdaa wixii waa gar goorgoosad ma tihidin sharcigiina wuu leeyahay laakiin أنا دولة أريتها بريدة كدواء كنيسة كون وقرص من هنا كلامات بين القرينا دولة وربع رجال سيروديس دولة أبو على إيران مثلا واحد دولة إثيوبيا مانتا لا سوق له هشيسك سوماليلاند بحي هشيسك كذا بحي كذا هشيسك قبل كيس الله عنه حرية دولة إثيوبيا تركي هي دولة Soomaaliland waxay ku heshiiyeen kow inay dowladda Ethiopia hesho dhul kira ah oo muddo laga heshiiyey oo cabarkiisa laga heshiiyo oo sharciga caalamka ee lagu kala kaleystaa dhulalka iyo saldhigyada adduunka loo maro marka ay tahay Soomaaliland ay igtaa ogolaato Ethiopia waxay ogolanaysaa isla markaa dowladda Ethiopia inay ogolaatay oo ay ictiraafto oo ay aqoonsiga Soomaaliland dowladda koobaad ee caalamka ay noqoto ayay heshiiska saxiixaysaa ay ku galaysaa labadaana isku goob baa lagu kala wareegaya heshiiska loo gelaya halka marka la dhameeyo sharciyada dalka loo maro ee dastuurkeena iyo xeerarkeena loo dhameeyo caalamkana la waafajiyo kirada dhulkaasi iyo waqtigaasi ayay dowladda Ethiopia caalamiyan u keenaysaa fayada ugu dhawaaqaysaa inay ictiraaftay qaranka Soomaaliland oo xor ah Soomaaliland maxay ka faa'iideysaa Soomaaliland ictiraafka Ethiopia kaligeed Soomaaliland waxay u baahan tahay in dowladaha caalamka inta u badan laga helo oo ogolaata isku raacda General Assembly inay ogolaado inay Soomaaliland la soo noqotay xorriyadeedii 1926 Juun inay la soo noqotay oo loo ictiraafo waxay ku go'an tahay in General Assembly la geeyo waa tallaabadii u horeysay oo la filayo inay si xawli loogu gaaro in General Assembly aqoonsado Soomaaliland xorriyadeedii ay gooriyeystay maamulkeedii 3 sano maxaa dhibaato ah Soomaaliland kaga iman kara heshiiska maxaa dhibaato kaga iman kara dadka waxa la dhacsiiyay war ma dhulkeedii baan ku soo deynaa Ethiopia iyo oromada faraha badan oo ay jeedaysa oo ay noo xoogeen waa dhul xagow inoo kaxeeyay meel wala caasi jirin afsoonaga toban ma taagan fulayay waxaan sheegay Ethiopia population-ka ku nool ee qowmiyaha badana
qoomiyadda ugu badan waa oromada tabartaana waa axmaarada qoomiyadda saddexaad ee Itoobiya ugu faraha badan waa Soomaali beelba oo ka saabay Itoobiya ay degan tahay waa meesha ay isugu timaado Soomaali ee aataradeeda iyo dadkeeda oo dhan iyo reeyay ku ursay intaas oo dhan waa dalka qura ee Soomaali awoodda iyo talada ku leedahay laba marka Itoobiya marka la eego qoomiyado soo kala badan yihiin waxa ugu badan oo isku dhow oromada ugu badan waxa ku xigo ku dhow dhulka Soomaaliya ay ku leedahay dawladda federaalka ee Itoobiya dhulka Soomaaliya waa ka labaad waa dalka quraha ee Soomaaliya awood inta leedahay ay ku leedahay saddex maxay isku xaalu Soomaaliya xeerarka caalamiga ah ku galay ee adduunka dhisay yahay haddii saldhiga sida haddii isqabayno sida looga baxayo shuruucda loo marayo waa ku caalamiga loo marayo ma jiro warwar dhul Somaliland leedahay in ay Itoobiya xoog ku qaadayso su'aal baan isweydiinaya ninka taadadka ku wareegayo maanta yaa ka jooga Somaliland iyo Soomaaliya xawarba Itoobiya haddii xoog ku qabsanayso quwadda ka hor joogtay halka lagu hayaa waa kuwa sharciga adduunka ka hor jooga kaasaan ku xidhay saldhiga maxay ka fanta Somaliland dal qura tarafay waxay ka ictiraafsan koow dal kasta oo eeganayay oo ka baqayay caalamku suugisan yahay in uu Somaliland faraha la galo Itoobiya faraha la galaysa oo siyaasiyan inta inaga culays weyn haysan in ka badan caalamku maanta أو ما قصر إنتهى بس روح كان عيون ما قصر عارف خربوا وواحد ويرانا ينتقل الصومالي يكون هاي بارك صار يوم عمس كل عيا هو تبي كل عيا وبريد ده تبي كاركتر